haweeneydan waxaa loo maxkamadeeyay dilka gabar ay dhashay iyada iyo ninkeeda oo cabsan ayaa daba ka soo tuuray gabadheeda oo 3 sano jir ahayd. Waxaa la sheegay inay sarkhaansanaayeen markii falkani dhacayay. Mareegta TikTok ayay caan ka ahaayeen waxayna ku soo duubi jireen muuqaallo qoobka ciyaara oo muusig lagu laray. Muuqaal ay soo duubtay ka hor geerida gabadheeda ayay ku sheegtay filashada war naxdin leh sababta midba midka kale ugu eedeeyay dilka gabadhooda iyo xukunka ay ku dhawaaqday maxkamadda cadaaladda Birmingham ayaan warbixintan ku qaadaa dhigi doonaa. Falowde bogga Maxamed Muuse Tarsan haddii aad nala socotay like saar muuqaalkan oo sii faafi mahadsanid. Muuqaalka CCTV kaamiradu ay ka duubtay gudaha wiishka dhisme dabaq tobaneeye biyaano ah oo ku yaal magaalada Birmingham ee cariga Ingiriiska ayaa ah mid wadna qabad leh oo kulansaday daryeel la'aan iyo naxariis darro. Waxa uu muujinayaa gabar yar oo faraxsan oo fiirinaysa hooyadeed oo ku mashquulsan muraayadda xilli ay rogrogaysay telefoonkeeda iyo timaheeda iyadoo dheg jalaq u siin hadalladeeda. Muuqaalka kaamirada qarsoon ayaa soo qabtay markii ugu dambeysay oo nolol lagu arko Kylie Jade oo ahayd gabar 3 sano jir ah oo ay dilkeeda wada qorsheeyeen hooyadeed Nicole Breeze iyo ninka qaba ee Callum Redfern. Nicole Breeze ayaa muuqaallo qoobka ciyaara la duubi jirtay gabadheeda oo socod barad ahayd intaan meedkeeda laga helin gurigii ay kaga noolaayeen Birmingham 9kii bishii Agost ee sanadkii hore. Fiideo lagu baahiyay barta TikTok bil ka hor dhimashada Kylie Jade ayaa si maldahan loogu sheegay inay gabadhani ku jirto saacadihii ugu dambeeyay nolosheeda. Waxay markaas afka ku haysay ereyada heesta ay gadaasheeda ku ciyaaraysay oo miraheeda ay ku jireen waan ka xumahay hooyo iyo aabe, waan ogahay inaan xumaaday, waxay ahayd inaan sameeyo, waa inaan si ka wanaagsan sameeyo hadda kadib ayay ahaayeen ereyada shakiga badan dhaliyay ee xeeraalintu ay ku dooday. Waxayna taasi keentay in xeeraalintu ay cadeymo u hesho dilka gabadhan 3 sano jirka ahayd. Khuburadu waxay u ekeeyeen nabarrada ka muuqda jirka Kylie Jade in lagu dhuftay baabuur xawaarihiisu yahay 40 mayl saacadii ama in laga soo tuuray dabaq 3 biyaana ah kadibna meydkeeda dhulka laga soo qaaday. Maxkamadda cadaaladda Birmingham oo ka garnaqday kiiskan ayaa ogaatay in dilku talagala ay Kylie Jade u geysteen hooyadeed iyo ninka qabay kadib goortii ay hurdada ka soo toostay iyadoo ooyeysa goor habeen ah markaasoo Callum Redfern iyo Nicole Breeze ay farxad ku qaadanayeen ardaaga ama balakoonka gurigooda. Maxkamadda oo xiganaysay qof deegaanka ah guriga ay ku noolaayeen ayaa sheegtay in fiidkii Redfern iyo nin ay saaxiib u ahaayeen oo wato dhala khamriga Fordka loo yaqaan ay tageen dabaqa 3aad oo ay wada joogeen Nicole Breeze iyo gabadheeda halkaasoo ay ku khasaariyeen waqti badan oo habeenkaas ka mid ah. Habeenkaas Callum Redfern iyo xaaskiisu waxay cabeen feetooyin xashiisha iyo dhalooyin khamri ah mana xasuustaan wixii dhacay. Nicole Breeze oo 23 sano jir ah iyo gacaliyaheeda Callum Redfern oo 22 sano jir ah intii ay socotay dacwadu midba midka kale ayuu ku eedeeyay geerida gabadha la dilay. Labaduba waxay si wada jir ah isaga bari yeeleen dilka gabadhooda laakiin waxa lagu xukumay xukun gacan ku dhiigle fadhigii Khamiistii maxkamadda Birmingham. Xaaskiisa Nicole Breeze ayaa lagu xukumay 15 sano oo xariga. Waxa isna garka loo geliyay 14 sano oo xariga kadib goortii lagu soo oogay dacwad arxan darro oo ay nolosha ugu qoonsadeen Kylie Jade oo 3 sano jir ahayd.